Asalaamu calaykum asxaabta qaaliga ah. Soo dhawaada meel walba adduunka ka joogtiin. Waxaan leeyahay morning subax wanaagsan. Alxamdulillah nabada ku soo kacay. Saawada ogtiin isbitaalka jooga wili. Maali ii keenay. Quraacda saali ii keenay. Meeshaan faleen ba igu xiran. Hal gacna wax ku duubaya oo dareemi kartiin. Because odaygayga ilama joogo. Ana keligay waaye. Isbitaalkana waqti gooni la soo galaya jirto oo lagu soo booqanayo iyo waqti laga tagaayo. Marka waqtiyadaas oo ii imaana oo iga tagaa. Isbitaalka hore aan ku xirnaa oo privacy-ga ahaa kanuu noo soo wareejiyay maadaama oo ilmaha wadnaha laga haayo. Marka maanta waxaa leeyahay balantaasna waxaa la leenahay dhakhtarka guud ee qaabilsan wadnaha. Sida xalay hore niigu sheegay in macali cusr yusra uu dhahay ilaahay wax walbo oo adag fudeeday dib ka noqdaan. Meeshaan haddana iska qadeynayaa because waxaa u baahanahay energy u baahanahay inaa cunto fiican cuno waaye because xaaladeyda waa dareemi kartiin inaan ku soo celceliyo ma fiicno. Meeshaan waxaa ii xiran macbuus iyo shaati hayla yaabina aniga dhan waa bararsanahay faanteen. Marka alxamdulillah shukr caalamiin ducadiina waa arkay sa iigu soo duceyseen yaa inay dad badan ay dhaheen ifraax sabar yaa waan sabray qadarta rabbi waa qaatay alxamdulillah shukr caalamiin laakiin hooya ahay dareenkaasi tiyaa leeyahay si walbo isku celisid qalbigaada ma celin kartid waayo waxaad dareemaysaa xaalad aad u adag dareemaysaa. Cuntada inta sira ka cuno waa wadi waayo waa iska dhigay niyadeyda waxaan u sheegaa inaan cunto cuno. Hadda waxaa la ii soo wadaa dhakhtarkii wadnaha la balansanaa moogta horta meeshaan dhakhtarka gudaha lama duubi karo saas ogaada because camera dhan ma rabaan ma fahanteen camera dhan ma maqli karaan. Intaan aan hadda duubooyo ima aragto gabadhaas kalkaalisada ah oo wheelchair-ka igu riixayso. Marka wheelchair-kaas la igu soo riixay halkaana la ii keenay odaygayga sugayo oo ii imaanaya markaan yaa oo ii imaaday ugu dambeyn fiidiyooga waa ka arki doontaan ilmahayga xaaladooda aaday u liidataa Soomaaliyeey yaa ilmahayga maanta waxaana lagu dhahay ilmaha 30% wadnahooda noqdeen 30% waa 30 oo kaliya baa shaqeynayso. Marka ilaahay isiiya daraad waliba uurkaan sikadis ah oo ilaahay igu siiyay maantana sikadis ah waxaa ku ogaaday ilmahayga inay wadnaha ka xanuunsan yihiin. Waliba xaajigayga uu iga qariyay maanta wadnaha inay duleelaan xaawo ii sheegay ilmahayga wadnahooda wuu duleelaa. Ilmo badan oo Soomaali oo ku dhashto ka badbaaday jiro laakiin xanugayga ilaaha u qadaray asoo 7 bilood ah oo caloosha ku inuu marxaladan oo maraba emotional inaan noqdo sida xalay camal walwalkaan iga ilaalinayaa qaraabo asxaab intaba fiidiyoogaasi xalay markay arkeen way iscelin waayeen qof walbo damiir leh oo muslim saas ay tahay foola ii dheer dhabarka iyo mindhicirka ka foolanaya makaankayga ma furno. Maanta waxaa liigu dhahay 27 wiiga tahay haddii aad ii sheego oo aad dhahdid qaliin hala imarsiyo ama caadi hala iga foolsiiyo dib dambe ilmo uma dhalaysidaa leedahay. Markaan dhakhtarka sugooyaa meesha saas u taaganahay dib dambe aligu dhahay for my life uma dhalaysid waa inaad sugtaa aligu dhahay 10 beri 10kaas berina waxaa waaye 37 week
lagu qalaa ama caadiya u foolanee. laakiin 27 week ma dhali kartid. anagana naftaada halis ma gelin karnaa liigu dhehe. iisoo duceeya, ducadiina u baahanahay. maalinta laisku baahan yahay waa maanta camal. xoolanayga ma rabo, waxnayga ma rabo, duco oo keliya inaa iisoo duceysaan. dad igu xiranaa tihiin. qofka afkiisa la saaran yahay ilaaha og. maanta markuu dhakhtarka igu dhahay 10 beri gurigaada joogaa liigu dhahay, weliba gurigaada aad yaa 2 maalin kadib appointment u imaawaa liigu dhahay. 37 week markaa gaartid ama waa lagu qalaa ama waa lagaa foolinaa. marka ana fooliska kuma qanacsani, in la igu qalaa ku qanacsanahay, maadaama qaliinka af aqaano hore u soo maray. wadankan macnaheedu waa cabsanayaa. fahantiin aan qof wax iska ahay, iska cabsi badan reality-ga marka laga hadlo. curbada la iduraayo aan u dulqaadan karin. macadallaahi foolis oo curbada kululeysada aragteen. gabdho badan waxaa laga yaabaa maanta YouTube-kayga ku xiran oo foolis looga dhaliyay curbada kululeysada. laakiin aniga go-aankayga waxaa waay inaan caadi u dhalo. ilmahayga waxaa rajeynayaa inay caadi u dhashtaan. rajadeyda marne dibay u laabataa, marne rajadeyda way soo noolaataa. maanta marka 10 beri oo jaanis la isiiyay, waxaa ilaahay i tusay ama aan ii sheego macnihii aan yeestay 10kaas beri ilaahay inuu awoodo ilmahayga xaaladooda inay ku fiicnaan karto, wax badan iskaaga bedeli karaan. marka waa aragtaan muusena iska calool xumaade, aad u calool xumaade because dhakhtarka maanta wuxuu nagu yiri ilmahana ha ku tashanina. ilaahay ma dhihin, bini aadana dhahay iisoo duceeya. marka liigu dhahay 10 beri gurigaada joogaysaa, waxaan yeestay ilmahayga 10kaas beri ilaahay inuu wax walba iigu awoodo, inuu ii sheego wadnahooda oo kor u kici karo, inuu oo ii dhalan karaan ayagoo caafimaad qabaan. yaa marka idinkana gabdho iyo wiilal intii daawato oo muslim ducadeena iisoo duceeya. marxaladan aan ku jiro qof walba hooyaa dareemi karo. fahanteen heer waxaan gaaray madaxayga oo kaco, madaxaygu kacsan yahay. waxaan dareemayaa sida dhiig inuu iga shumaayo camal. waxaan kaloo barakshirkaygu dhacsan yahay. maanta sonkorteyda markii la cabir 9 noqotay. xaaladeyda aad ay u culus tahay, aad iyo aad ay u culus tahay. muuse badanaa murugtii oo hinta igala dhuuntaa. suuliyada iyo guriga markuu tago oo iska ooyaa. laakiin aniga dumara ahay, emotionalkayga ma qarin kari. hooyaa ahay, ilmahayga maanta waa u baahanahay. waa la soo silcay, waa la soo rafaaday. walac xanuunkiisa aragteena la soo maray. maanta wiilkayga yaa wiil waay horta waxaa wada mani sheege. shalay yaaba la ii sheegaba aniga naftarkayga inaa wiil wado. wiilkayga maanta waa u baahanahay, aad iyo aad ugu baahanahay inuu ii dhashto oo caafimaad iigu dhashto. xitaa hadduusan caafimaad iigu dhalanin, yaa waa lala tacaali lahaa xanuunkiisa sidee noqoto. yaa marka sidaas ay jirto. ilmo badan oo Soomaaliya wadna xanuunka ku dhashtane way jiraan oo lala tacaalo oo qaliimo lagu sameeyo. gabar in adeertayaaba ka mid ah canug sidaas oo kale wadnaha laga hayo dhashay. maasha Allah way haysataa, Allah u barakeeyo. ma fahanteen. marka aniga maanta waxaan jeclaan lahaa canugayga intay leeyihiin dhaqtaradan niyada ka saar, qalbigaada ka xiro. yaa ilaahay agtiisa wax ma ka ahan inaa haysto, daaweysto, la tacaalo. marka Soomaaliya iisoo duceeya. hadalka badan ugu fiicni. oksijiinka igu dhagaayo. caawa kaliya 5 mar barakshirkayga la baaray. oksijiinkaygana suulka la iiga xiray. soo marka marxaladaas ku jiraa.
beriya isbitaalka laga yaabaa inaan ka baxo, laakiin maalintii 2 maalin hal mar imaanaa, 2 maalin hal mar appointment leeyahay. insha Allah waan ila soo socodsiinayaa wax walbo. muusana emotionalkiisu isbedelay. alxamdulilah, shukr rabbil caalamiin. wuxuu ilaahay keenay cidiideysa malahan. ducaan iga baahannahay. fiidiyoogan intuu nii soo gaaray like gareeya, share gareeya, commentiyadiina quruxda badan laabta ii dhiseen. xalay commentiyadiina waa ku kor oonayay, dhiirigelinna waan ka qaadayay. soo marka meeshaan hooyo ima joogta, aabe ima joogo, idinkaan ii haystaa. waxaan iga codsanayaa inay ii duceysaan, ii dhiirigelisaan, garabkayga noqotaan. haddaa in badan iiga soo qosliye, in badanne aan muuqaalo nii soo gudbiye. saasay nabadgelyo. Bye bye aan leeyahay.